Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee Suldaanka Media oo si toos ah idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee aynu ku leenahay magaalada Nairobi. Waxaa warka alaaba idin sheega anigoo ah Maslax Abuukar Xaaji. Qodobada warkayga aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah Yusuf Garaad oo sheegay in haddii internetka la joojiyo xitaa qishka imtixaanaadka qaranka aysan istaagi doonin. Qaar ka tirsan warbaahinta gudaha dalka Soomaaliya oo tabinaya in shaqaalaha rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliya ay soo wajahday cabsi aad u xoogan. Madaxweyne Biixi xukuumaddiisa waxaa weerar ay ku qaaday Professor Samatar. Dood uu ka qaybgali lahaa Ra'iisul Wasaare Khayre oo xalay ka dhici lahayd gudaha magaalada Muqdisho oo baaqatay. Shirkado Turkish ah oo qorshe maalgashi u tagay magaalada Hargeysa halkaasna si weyn loogu soo dhaweeyay. Warkii oo fidsan. Yusuf Garaad Cumar, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya, ayaa waxa uu sheegay haddii internetka laga jaro guud ahaanba Soomaaliya in qishka uusan joogsan doonin. Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Yusuf Garaad Cumar ayaa ka hadlay go'aankii dowladda Soomaaliya ee ku aadanaa joojinta imtixaanaadka dugsiyada sare ee sanadkan. Wuxuu marka hore ka hadlay imtixaanaadkii ay gali jireen xilliyadii hore ee dalka uu lahaa nidaamka dowladnimo ee aadka u wanaagsanaa. Wuxuu sheegay in xitaa haddii la joojiyo adeegsiga internetka aanu joogsan doonin in ardayda ay helaan qishka. Wuxuu qormadiisa kooban kaga hadlay saameynta baraha bulshada iyo imtixaanaadka dowladda. Imtixaanka Form 4-ka waxaan ku galay dugsiga sare ee 15 May 7 arday oo 2 macalin ay ilaalinayso ayuu fasalkaygu ahaa. Inta aan fasalka la gelin ayaa ardayga wuxuu iga codsaday inaan u diyaariyo qoraal aan ugu waramayo fatahaadaha webiyada oo af Ingiriis ah. Ardaygaas oo aan saaxiibo ahayn, oo aan aqaanay inuusan waxbarashada ku wanaagsaneyn, oo aan su'aal aqoon ah i weydiin jirin mowduuca uu doortay iyo xilliga intuba waa isku kay qaban jireen oo waan la yaabi jiray, ayuu ula jeeday dabcan Yusuf Garaad Cumar. Saacado yar kadib markii la furay baqshadii imtixaanka, waxaan ka fikiray sida aan uga jawaabi lahaa isla su'aashii uu yarka i weydiiyay oo imtixaanka igu soo booday. Inkastoo ardayda waxbarashada ku wanaagsan ay ku jireen fasalka, haddana aad iyo aad ayaan uga carooday in ugu yaraan hal arday uu sii ogaa su'aal imtixaanka ka mid ahayd. Social media iyo internetka midna ma jarin fiiro gaara dadka qaar maadaama ay fahmi waayeen. Waxaan u jeedaa in internetka oo la xanibaa aanu qish joojinayn ee loo baahan yahay macallimiin, maamul iyo kormeerayaal isku kalsoon si adagna loola xisaabtamo. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa gabi ahaanba ay baabi'isay imtixaanaad socday muddo 3 maalmood ah, iyadoona imtixaanaadkan ay galayeen ardayda wax ka barata dugsiyada sare ee gudaha dalka Soomaaliya. Xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ayaa waxaa weerar ay ku qaaday Professor Samatar oo ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn looga yaqaano deegaanada Somaliland. Xukuumadda Somaliland ee uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa maalmihii ugu dambeeyay ay saluug ka muujisay habdhaqanka siyaasadeed ee Professor Axmed Ismaaciil Samatar. Professor Samatar ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay kulamo kala duwan ku qabtay gobolada Somaliland, isaga oo uu ku wehelinayay kulamadaasi Dr. Cali Khaliif Galeer, kuwaasi oo dadweynaha u qabanayay doodo kala duwan. Haddaba gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Somaliland Cabdikariin Axmed Xinif oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa dhaliilo u soo jeediyay Professor Samatar, kaasi oo sheegay in uu professorku ku biyo shubtay halbeel. Xinif oo ka hadlaya arrinkaasi ayaa waxa uu yiri haddii aqoon-yahanka hadalkiisa ugu dambeeya sida iminka jirta uu noqdo, haddaynu reer hebel nahay waa la ina dulmiyey oo xaq baa inaga maqan, kaasi aqoon ma soo kordhin ee odayaashuna intay yaqaaneen ayuu garanayaa. Wuxuu intaasi ku daray markuu kulmiye noogu yimid ee uu shaqaynayay iyo iminka sidii u dhaqmayaa waa kala laba oo aan shaqo isku lahayn. Waqtiga qaranimo iyo aqoon buu ka hadlayay, iminkana aqoontiisa xaafad bay ku ururtay. Professor Samatar ayaa xilligii uu socday ololihii doorashada Somaliland ku qabsaday doodo kala duwan oo la xiriira dhinaca doorashooyinka, isagoona kaalin weyn ka qaatay in xisbigan guul uu gaaro.
Samatar ayaa dhowr mar goobo fagaara ah ka jeediyay khudbado uu ka dhaliilayo madaxweyne Muuse Biixi isagoona weli ka tirsan xisbiga talada haya ee Kulmiye. Dhinaca kale, Professor Samatar iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Ciro ayaa waxa ay dhawaan booqasho ku soo gaareen Nairobi, taasi oo hoggaanka Somaliland ku abuurtay in uu u xoobsiibtay dhinaca mucaaradnimada. Dood xalay magaalada Muqdisho uu uga qaybgali rabay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa la baajiyay kadib markii xaaladu ay soo kordheen. Waxaa xalay la baajiyay barnaamij dood ah oo uu ka qaybgali lahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, taasi oo ka dhici lahayd hotel ku yaala magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Royal Place. Barnaamijkan ayaa waxa uu ka dhici lahaa Royal Place waxaana toos uga bixi lahaa ilaa 6 TV iyadoo ay ka qaybgali lahaayeen 12 dhalinyaro oo ay soo diyaariyeen koox ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Magaca barnaamijka ayaa ahaa dood furan, waxaana doorka lagu saari lahaa sida ay dhalinyarada uga qayb qaadan karaan horumarinta dalka iyo dhismaha dowladnimada. Sidoo kale, doorka dhalinyarada ee nabadda iyo xasilloonida ayaa looga hadli lahaa. Sababta ay dooda u baaqatay ayaa lagu sheegay xaaladda magaalada Muqdisho oo ay ka dhaceen banaanbaxyo ay sameynayeen arday Soomaaliyeed iyo qarax ka dhacay xarunta degmada Warta Nabadda. La taliyayaasha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa saacadihii ugu dambeeyay ku dhawaaqay in dooda dib loo dhigay sababo ku aadan xaalado soo kordhay oo dhanka ammaanka iyo tabashada ardayda Soomaaliyeed. Mas'uuliyiinta ku taliyay in la baajiyo barnaamijkan ayaa u arkay in maanta aan looga hadli karin mustaqbalka dhalinyarada maadaama ay dowladda ku fashilantay imtixaanka dugsiyada sare, caradii ka dhalatayna ay ardayda dibadbaxyo sameeyeen, halka dadka dhaliilsan dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegeen in tani ay muujinayso in dowladda Soomaaliya ay fashil dhexda ka joogto. Dowladda Soomaaliya ayaa dhex mushaaxaysa xaalad adag oo kasoo wajahday imtixaanaadkii qaran oo lagu arkay suuqyada magaalada Muqdisho, taasi oo waalidiin Soomaaliyeed ay si weyn uga xumaadeen. Xagga iyo Somaliland haddii aynu dib ugu laabano, shirkado Turkish ah ayaa waxa ay u tageen Hargeysa inay maalgashadaan. Madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay madax ka socotay shirkadda Gulhan Limited Diyarsan Company oo laga leeyahay Turkiga oo uu hogaaminayay gudoomiyaha shirkadahaasi Mr. Aziz Yildirim oo safar shaqo ku tagay Somaliland. Mas'uuliyiinta shirkadda Turkiga ah ee madaxweynuhu kulanka uu la qaatay ayaa ujeedada ay u tageen Somaliland ay tahay inay daneynayaan fursadaha maalgashi ee jira iyo sida ay uga qayb noqon lahaayeen mashaariicda maalgashi ee ka soconaya Somaliland, gaar ahaan maalgelinta kalluunka, macdanta, warshadaha, beeraha iyo tayeenta wadooyinka. Waxayna sheegeen inay ku qanceen dadaalka iyo horumarka Somaliland ay sameysay iyo maalgashiga weyn ee halkaasi ka socda, iyaga oo taa ka duulayna ay doorbideen in Somaliland ay ka fuliyaan maalgashi isla markaana tusaale u noqdaan shirkado maalgashi ka sameynaya gudaha Somaliland. Sidoo kale, wasiirada wasaaradaha ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska, macdanta iyo tamarta, gaadiidka iyo horumarinta jidadka, horumarinta maalgashiga, horumarinta beeraha, xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga ayaa kulanka kusoo bandhigay qorshayaasha maalgashi iyo sida ay ugu diyaarsan yihiin inay ka faa'iideystaan. Ugu dambeyn, madaxweynuhu waxa uu bogaadiyay mas'uuliyiinta shirkadaas ka socday iyo sida ay ugu dhiiradeen in Somaliland ay ku sameeyaan maalgashi aad u buuxa. Kulamo looga hadlayay arrimaha imtixaankii la xaday ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ilaa xalay waxa ay ka socdeen magaalada Muqdisho. Kadib shalay banaanbax aad u xooggan oo ay dhigeen ardayda Soomaaliyeed, waxaa muuqata in dowladda federaalka Soomaaliya ilaa 27 bisha Ramadaan ay dib u dhigtay imtixaanaadkaasi kadib markii suuqyada Muqdisho iyo baraha bulshada lagu arkay imtixaanaadkii oo sax ah. Ardayda oo shalay banaanbaxyo dhigay waxa ay ku doodeen inuu iscasilo wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Goodax Barre. Hase ahaatee, waxaa muuqata in haatan weli ay socdaan kulamo ku aadan sidii loo adkeyn lahaa imtixaanaadka la qaban doono 27 bishan aynu ku guda jirnay Ramadaan. Wasiir Goodax Barre ayaa sheegay in waalidiinta Soomaaliyeed ay caruurtooda u iibiyeen imtixaanaadka, taasi oo aan loo baahnayn, iyadoona hadalkaas ay si weyn uga xumaadeen waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo xaalad adag caruurtooda uga soo bixiyay qarashka waxbarashada dugsiyada kala duwan ee gobolka Banaadir ku yaala. Waagaga khiyaartana daawanaysaa, intaasna waxaa inooga idil warkii subaxnimo oo aad kala socoteen Suldaanka Media. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee muhiimka ah ee aan sida joogtada kuugu soo gudbino.